ninkan wuxuu isku diray labada dal ee Sweden iyo Turkiya xiisadu waxay gaartay in la gubo calanka Sweden maalmo ka hor wuxuu ilaamiyay in uu ku gubi doono Quraanka Kariimka safaaradda Sweden horteeda ogolaansho buuxda wuxuu ka helay dowladda iyo sidoo kale ciidanka booliiska ah xukuumadda hadda dhisan Sweden waxaa ka mid ah xisbi xagjir ah xisbigaas wuxuu ogolaansho siiyay buuxda ninkan lagu magacaabo Paludan waa Danish Swedish ah ra'iisul wasaaraha Sweden oo la weydiiyay ogolaanshaha la siiyay ninkan cunsuriga ay siiyeen xisbi kamid ah xukuumaddiisa hadda dhisan wuxuu sheegay in dalka Sweden uu ka jiro sharci la dhaho xurriyatul qowl ninkan lagu magacaabo Paludan ee ka soo jeeda dalka Denmark sidoo kale dhalasho Sweden haysto ninkan waa lawyer sidoo kale waa siyaasi wuxuuna ka tirsan yahay xisbi cunsuri oo ka dhisan labada dal hadda wuxuu keenay farshaxan oo ku tilmaamay nabigeena naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee wasiirka arrimaha dibadda Turkiya oo cambaariyay dowladda Sweden ogolaanshaha ay siisay ninkan cunsuriga ah ee ku tilmaameen xurriyatul qowl wuxuu sheegay in lagu tilmaami karo xurriyatul qowl faafinta cunsurinimada iyo sidoo kale naceebka ninkan waxaa la sheegay inuu ka soo horjeedo in Sweden kamid ahaato xogweynta NATO waxaana ka dhacay isla maalintaas Quraanka Kariimka oo gubayay mudaharado waaweyn kuwaas oo looga soo horjeedo in Sweden kamid ahaato xogweynta NATO dadka qaar waxay aaminsan yihiin haddii Sweden kamid ahaato xogweynta NATO inay problem iyo dhibaato u keeni karto maadaama lagu yaqaan Sweden inay ahayd dhexdhexaad markaste isbuuc ka hor waxaa lagu arkay baarlamaanka Sweden horteeda bombale suran kaasoo u eg madaxweynaha Turkiya waxaa la joojiyay safar uu tagi lahaa wasiirka difaaca Sweden dalka Turkiya maadaama ay jirto falcelin ka dhalatay rabshadihii ka dhacay Sweden si weyn waxay u rabtaa inay kamid ahaato xogweynta NATO maadaama ay rabto inay kamid ahaatana waxay ku qasban tahay inay dal kasto kamid ah xogweynta NATO inay ogolaansho ka haysato hawlgala hadduu diido looma ogolaanayo inay kamid ahaato NATO